السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشركي أفراد برشادة لغة سواحيليغا عشركا مانتا وحان كوبان دونغنا كونسونانتي يا نا شبانها نا أيان كو قادن دونغنا عشركا مانتا عشركي هوري وحان كسو قادناي كونسونانتي ما شبانها ما waxaan dhahnay ma waxaan ugu dhawaaqaynaa haddii uu ku xigo shibano kale marka konsonanti na ayadana waxay la mid tahay konsonanti ma konsonanti na shibanaha na pia sidoo kale inaweza wuxuu awoodaa kutokea inuu kasoo muuqdo mwanzoni bilowga mwaneno erey marka waxaa la yiri konsonanti na shibanaha na pia sidoo kale si la mid ah shibanaha ma asagana sidoo kale inaweza wuxuu awoodaa kutokea inuu kasoo muuqdo mwanzoni bilowga mwaneno erey kabla ya kahor konsonanti nyingine shibano kale marka waxaa laga yaabaa in xuruufta na ay kasoo muuqato ka hor shibano kale yacni waxaa laga yaabaa in na la qoro kadib lagu xijiyo shibano kale aan lagu xijinin shaqal marka marba haddii na lagu xijiyo shibano kale waxaa loo akhriyaa marka ma waxaan u akhrinaynay na waxaan u akhrinaynaa goorme haddii uu ku xigo shibano kale mfano tusaale ndizi marka ayaan dhahnay kadib kuwan ayaan akhrinaynaa ndizi micnaheedu waa moos ndefu waa dheer ndefu ndiyo ha ndugu walaal njaa gaajo marka na waxaa ku xiga da oo ah shibane da oo ah shibane ja oo ah shibane marka kaliya kuma koobana ereyada loogu dhawaaqo antan waxaa jiri kara ereyo fara badan kaliya waxaad raacaysaa qaacidadan haddii na mise ma lagu xijiyo shibano kale ma waxaa loogu dhawaaqayaa na waxaa loogu dhawaaqayaa tusaale ndizi ndefu ndiyo ndugu njaa waxaan rajaynayaa inaad fahantay casharkeena maanta halkan ayuu inooga dhan yahay casharka waxaa idinla socodsinayay anigoo ah cabdikariim xasan waxaan ku kulmi doonaa casharka xiga waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu